cabdulxaliim alataar 33 jir Suuriyaan ah hal mar noloshiisa qaninimada iyo barwaaqada isugu bedeshay hanfi iyo kulayl barakac ku tagay wadanka Lubnaan gamcaha haysta 2 caruur oo aan daadoodu dhamayn 7 sano danta iyo waayuhuna ku kaliifay inuu rootigooda ugu raadiyo si maalinla waxaan maanta kula wadaagaya qisad dareenkeeda xambaarsan ku tusinaysa noloshaada sawirkeeda marka aad tagto dhul aanad u dhalan laga naxay qaxoontiga iyo dadkiina baahiyaysan sida maalinlaha u soo galaya waxay maanta qisadan ina dareensiinaysaa sida uu sawirkaagu noqonayo marka aad nolol noocaas gasho waxaa lagu magacaabaa Cabdulxaliim Alataar waxa uu dhashay dalka Suuriya wuxuu ahaa mid ganacsi kala duwan ku leh gudaha dalkiisa Falastiin gaar ahaan caasimadiisa Dimashq 15 Maarch 2011 xilli galab ah ayaa waxa xogeystay dagaaladii waqtiga ka jiray dalka Suuriya waxaana qirqir gashay naftiisa iyo familkiisa labadaba wuxuuna kaliya go'aansaday inuu badbaadiyo nafahooda sida ay ku sii noolaan lahaayeen wuxuu waayay hanti guri wax kasta oo qiimo lahaa wuxuuna harcad gacanta ka qabsaday labadiisa cunug oo ku soo korsaday nolol bilaa hooyo wuxuuna aaday dalka Lubnaan balse maxaa intaa kadib kula kulmay gudaha Lubnaan waxaa jeebkiisa ku jirtay markaa 40 liira ama Syrian liira oo xataa ka yar $25 waxa uu yimid dal cusub isagoo aan xataa sidan basraa laba sabi oo yaryar oo gaajaysan gacanta haya luqadda wadanka aan aqoon dadkooda aan laga jeclayn gudaha dalka Lubnaan لأجل qaxoontiga ay mar walba ku soo galayaan bal qiyaas isna dhig xaaladda noocaas ah maxay aad ku dareemi lahayd nolosha ma wahayn qof tuugsan jiray ee wuxuu ahaa nin dhididkiisa manaafacadsada waxaana mamnuuc ka ahayd wax kasta oo jileeca wuxuuna ahaa nin garanaya raganimada dhabta waxay tahay waxaanu isku dayay inuu shaqo raadsado oo aanu gudaarada fadhiisan sida ay dadka qaar sameeyaan waxaa shaqo aanu garanayn uu raadsaday gudaha dalka caasimadda Lubnaan ee Beirut sida hoteelo meheradaha cuntada balse cidna ma ay aqbalin ilaa haddana waxa ka dul ooyinaysa labadiisa cunug ee caruurta ah waxay kaliya u jiray lacagta uu markaa haystay casho iyo wixii ay cuni lahaayeen waqtigaas wixii uga soo haray oo aan badnayna waxa uu siistay dirtin qalimaan ah waliba kuwada biirooga ah taasoo uu ka doorbiday inuu qofka hoos alaalo wuxuu ahaa muddo 2 bilood ku dhow mid marba meel ka soo muuqda suuqa dhexdiisa isagoo iibinaya qalamadii kaliya xataa nolol maalmeedkooda ka faynayn waxa uu shaqadan waday muddo ka badan 2 sano iyo 8 bilood marka uu maalinkii soo iibiyay qalimada wixii uga soo harana waxa ay ka dhigtaan cunto bilowgii 2015 duhur ay cadceedu aad u kulushahay oo halka ay Soomaalidu ka dhacdo waa xilligii carabka ahna iska taa qof wax iibinayay ee xataa qof caadi ah aanu socon karin waxaana markaa si kaliya sawir uga qaaday nin in badan xaaladiisa la socday kuna arkay meeshan wax badan waxaana dushiisa ku gamacsanayd markan inanta yar waxaanu ahaa mid dadka wax weydiinaya oo mar walba la iga iibsada qalinkan in badanna bacadka taagnaa xilaa ay xaaladdu tahay yoome wuxuuna sawir ka dhigay baraha bulshada khaasatan barta Twitter-ka waxaan arkay bulsho kala duwan wuxuu noqday sawirka wiiga oo adduunka oo dhan uu qabsaday waxaana laga codsaday in ninkii sawirka ka qaaday uu soo bandhigo ciwaanadiisa si Cabdulxaliim loo caawiyo loogana caawiyo arrintanka kan oo wax loo siiyo bulshada caalamkuna aad ay uga damqatay markan wuxuuna u tagay Cabdulxaliim waxaana uu sameeyay ciwaan lagala soo xiriiro si loo caawiyo markii noloshiisa adduunka oo dhan laga daalacday iyadoo uu muuqaalkiisu qof walba maskaxdiisa qabsaday lagana dareemay murugta rafaadka iyo baahida ka muuqata caruurta yaryar ee uu wato sida uu daacad ugu yahay inuu wax siiyo noloshana uu yahay mid dhab u doonaya taasoo ay u dheereyd in uu qalimaan gadayo ahna nolosha meeshii ugu baysigsan iyo waxyaalaha ugu jaban ee wax laga dhextayo oo laga bayaabo xataa $100 waxaan gaadhini in ay dul saaran yihiin wana qiyaasi kartaa waxa dul fuuli kara amba la saari karo qiimahan qalimaan
wuxuuna ahaa qorshihiisu ninka caawiyey oo ahaa nin samafalo ah ahna dadka ka damqada ay wax siiyaa soona bandhiga sawirradooda iyo muuqaaladooda si bulshada ay wax u siiso in loo ururiyo oo keliya $10,000 oo ah si dibadejin loogu sameeyo meel uu degana loo dejiyo isagii ubadkiisa xoogaa yaroo dukaan ku furtana loo siiyo balse waxaa dhacay arrinka mucjisada leh ninkii sidii u taagta daraa carruurtu ka daba ooyeysay 2 casho kadib waxaa noqday maalqabeen kadib markii $190,000 ugu soo dhacday ciwaanadii loo furay iyo akoonkiisii noqotayna arrin la tacajabay wuxuuna ku sababsaday inuu noqdo nin maalqabeen ah hal sawir oo laga qaaday kuna noqday taajirka adduunka maanta wuxuu ka mid yahay cabdixaliin mid ka mid ah ganacsatada ugu tunka roon uguna lacagta badan caasimadda Lubnaan ee Beirut waxaanu leeyahay maqaaxiyaha cuntada hoteelada kuwa ugu qaalisan iyo meheradaha loogu aqoonsiga dhow yahay dalka Lubnaan iyo caasimadda Beirut arrinka sayaab kale ayaa waxa uu noqday inuu meheradiisa kaliya shaqaale uga dhigay dad Suuriyaan ahna kuwii soo barakacay ee meesha yimi haddaba qisadan cajabta badan ee Cabdilxaliim Al-Aataar waxaan ka baranaynaa 4 arrin oo muhiim ah oo kala ah number 1 nolosha liidnimada ah inaanad aqbalin meel kastoo aad joogto oo madaxaaga kor aad geyso inaad tuugsato iyo inaad qofka hoos calaashana aanad samaynin number 2 inaad aaminto Allihii markii horeba adoo waxaysta kaa qaaday haddana inuu wax ku siin karo haddii aanad ku shukri naqina marka la kaa qaadayo una tusayo nolosha fakhrinimada ah ee aanad ku shukri naqin dhibkeeda number 3 inaad marnaba ilaawin dadkaas ku duruufta ahaydeen isku magaalada aad ka timaadeen ee aad qaraabada iyo ehelka ahaydeen una ogolaanin noloshaad adigu martay in iyaguna wajahaan number 4 inaad samirto kuna samirto dhibka aamintana wacadka alla kuu qaaday ee ahaa culays kasta fudayd ayaa ka dambeynaya dareentana noloshu inay isbedelayso culayska inuu wanaag ka dambaynayo iyo fudayd dhib kastana uu dhammaanayo wax sii waarayaana adduunkan aanay jiraynin waa Xamse Baaldahab oo idinla taasi waxay ahayd qisadii xiisaha iyo xanuunkaba lahayd aan uga hadlaynay Cabdilxaliim Al-Aataari fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanaalka subscribe like garee muuqaalka lana sii wadaag asxaabtaada